mudan yaaliyo marweyn idinkoo aad iyo aad u mahadsan waxaan codsanayaa inaan siino cod eryaale aan ka dhageysano musharaxiintii tartantay intii tanaasulyaad ay u mahadsan yihiin waxaa isku soo haray labadan qofood haddana maslax maxamed siyaad iyaan ku horumarinayaa inuu laba kalima loo yidhaahdo marka falyatafadal idinka dhanoo fadhiista idinkoo raali ah بسم الله الرحمن الرحيم مدن مرويين قدوميها برلمانك يكون نديسة يو محوها سكرتاريتك برلمانك aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa sida qiimaha badan oo habaysan oo arrintu ay u dhacday aad iyo aad waan kugu hambalyeynaya waana ugu mahadcelinayaa sidoo kale madaxweynaha Sheekh Shariif waan u hambalyeynayaa sida guusha oo fiican uu ku guuleystay waana mahadsantii بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مركب أبو الرئيس وحايد كسلام سلامة إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي آد وحانوق فرحسنا هاي نتيجة هل كان كرد عضي وأن لا يهي وأقول أمد الصومالي ذي قارتي وأقول برلمانك دولة إنه إيجارتي ضمان شعبك الصومالي مالي جوغان وكوهم بلينا waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha baarlamaanka ee gudoomiye ku-xigeenada xubnaha baarlamaanka sharafta leh bulshada caalamka dawladda Djibouti ee suura gelisay shirkan halkan ka dhacay mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinkaga mahadcelinayaa si gaar ah codkiina aad igu taageerteen iyo kalsoonidiina waxaan sidaas oo kale u mahadcelinayaa saaxiibada ama walaalahay igala soo qayb galay tartanka oo runtii qiimaha uu leeyahay tartanka siiyay gaar ahaan walaalkay maslaxa ugu dambeeyay runtii natiijo aad u wanaagsan muujiyay sida waxaan sidaas oo kale rabaa inaan u mahadceliyo ra'iisul wasaarihi Hole Nuur Cadde oo runtii dadaal badan ka soo geystay wada hadallada iyo nabadda halkan soo gaartay door weyn ku lahaa isla markaasna waqti hore muujiyay inuu tanaasulay waxaa la hubaa in maanta ayna sugayaan hawlo aad u waaweyn laakiin falillahi alhamdu maanta gunti ay noo talantahay oo dawladdu ay jirto baarlamaan midaysan
dawladana insha Allah ta'ala ama xukuumadda aan dhaho sida ugu dhaqsiyaha badan aan soo magacaabi doono annaga xoog saari doona inay noqoto xukuumaddaas xukuumad ka turjumaysa shacabka Soomaaliyeed isla markaasna awood u leh inay qabato hawlaha laga sugayo insha Allah ta'ala sidaas oo kale waxaan rabnaa inaan u mahad celino dawladihii sida gaarka ah gacanta uga geystay hawshan ama dhaqaale ku bixiyay ama juhdi badan ku bixiyay dawladihii taageeray ay kamid ahaayeen dawladaha igaad ee dariska nala ah ama anagu aan kamid nahay si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo akhuuna Ahmed Wad Abdallah sidaas oo kale walaalkay Ismaaciil Umar Geelle dawladdiisa iyo shacabkiisa meeshaan oo kale waxaan u maleynaa in hadal badan aan laga sheegi karin maxaa yeelay waana la daalay waqti badanna waa la fadhiyay hawlo fara badanna waa soo socdaan laakiin waxaan ugu bishaaranaa insha Allah ta'ala inaan ugu adeegi doono shacabka Soomaaliyeed daacadnimo iyo kala sooc la'aan iyo in dhamaantood aan siino furaska ay xaq u leeyihiin dhamaantood waxaan rabaa inaan idinku bishaareeyo sidaas oo kale colaadda ka jirta dalka Soomaaliya inaan dadaal badan u gali doono insha Allah ta'ala dhammaan walaalaheena hubka sida ee ka soo horjeeda processkana waxa leena ku soo biira waa walaalihiin gacmaha idin taagayna ku soo dhawaada sidaas oo kale dawladaha dariska nala ah waxa leena waxaan diyaar u nahay bariga Afrika oo aamin oo daris ah ay u dhaxayso iskaashi iyo wax wada qabsi iyo is-ixtiraam sidaas oo kale caalamka waxa rabaa inaan u sheego Soomaaliya meel caalamka looga duula ma aha waxa degan dad masaakiin oo dhibaataysan oo nabad naftooda u raadinaya waxaan rabaa inaan ku biiriyo intaas waxaan ku dadaali doonaa insha Allah ta'ala fahamka qaldan ama turjumaadka qaldan ee islaamka laga fidiyay in si sax ah ay u dhacdo insha Allah ta'ala mudanayaal iyo marwooyin waxaan hubaa in aad dadaal aad u weyn aad ka muujiseen processka halkan inuu soo gaaro maantana la taagan yahay mirihiisii insha Allah dawladdan ay horsoodi doonto nabad waarta oo ka dhacda geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya mudanayaal iyo marwooyin waxaan idin ballan qaadaa insha Allah ta'ala maadaama baarlamaankii la mideeyay in sida loo mideeyay ahaadaan oo wax kala soo la ilaahay ka dhaxdhicin baarlamaanka dhexdiisa cid la arkana la siiyo ahmiyada iyo xaq xuquuqda ay leedahay insha Allah ta'ala waxaan dhici doonin awood marorsi waxaan dhici doonin insha Allah ta'ala masuq waxaan dhici doonin insha Allah ta'ala in laga gaabiyo mas'uuliyadda dusha nasaara ugu dambeyntii ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa ummadda Soomaaliyeed nabad u keeno midnimadeedina soo celiyo barwaaqo iyo horumarna gaarsiiyo dhibaatadeena insha Allah ta'ala soo gabagabowdo oo soo gabagabayso dawladdan ilaahay ka dhigo dawladda soo socotana inaa ku dooratin insha Allah ta'ala dalka dhexdiisa waa maasantiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
hadbakiina daandarane taageera weligiine hadbakiina daandarane